Adolf Hitler hogaamiyey xisbiga Naasiga ah ee Jarmalka waxa uu dhashay taariikhdu markii ay ahayd 20kii Abriil 1889 isagoo ku dhashay dalka Austria gaar ahaan magaalada Braunau waxa uu ahaa mid ka mid ah keligii taliyayaashii ugu xooga badnaa qarniga 20aad isagoo ka mas'uul ahaa dhimashada 12 milyan oo qof duulaankii Jarmalku uu ku duulay dalka Poland ee 1939 waxa uu horseeday inuu dilaaco dagaalkii labaad ee adduunka taasoo fududeysay 1941 ciidamadii Naasiga ee Jarmalku qabsadaan wadamada la isku yiraahdo Yurub wuxuuna horseeday xasuuq loo yaqaan Holocaust kaasoo sababay dhimashada qaar ka mid ah 6 milyan oo Yuhuud ah iyo 5 milyan oo kale oo aan la aqoonsan aynu wax ka taabano qoyska uu ka dhashay Hitler qoyskiisu waxa ay ka koobnaayeen 6 caruur ah waxaana hooyada lagu magacaabi jiray Adolf Hitler waxaanu xaafadooda isaga tagay isagoo aad u dayar sababta ka dambeysay ayaa ah khilaaf badan oo soo kala dhaxgalay isaga iyo aabihii waxaanu markiiba ku biro oo ka mid noqday sirdoonka taariikhdu markii ahayd 1903 waxaa si lama filaan ah u dhintay Hitler aabihii 4 sano ka bacdina oo ku beegan 1907 waxa ay geeriyootay Hitler hooyadii inta wixii ka dambeeyay waxa uu soo guuray magaalada Vienna isagoo halkaas ka qabtay shaqooyin teel ah oo ay ka mid tahay rinjiinta guryaha waxaanu dhowr jeer dalbaday shaqada farshaxanka isagoo 2 jeer la soo diiday oo ku guuleysan waayay arinka farshaxanimada taariikhdu markii ay ahayd 1913 waxa uu Hitler u guuray oo uu tagay magaalada Munich ee dalka Jarmalka bilowgii dagaalkii koowaad ee adduunka ayuu qortay codsi isagoo rabo inuu ku biiro askarta Jarmalka waxaana ku qaadatay inuu ogolaansho helo hal sano sababta ka dambeysay ayaa noqonaysa isagoo dhalashay Austrian ah sitay Hitler waxa uu ka qayb galay dhowr dagaal isagoo markii dambe ku dhaawacmay dagaalka loo yaqaan Zoma dagaalkaas ayaanu ku noqday mid ka mid ah dagaalyahanadii ugu firfircoon ee dalka wixii intaa ka dambeeyay Hitler waxa ku sii badatay jacaylka wadaniyad ah ee uu qabo dalka uu dhigiisa u qubay ee Jarmalka dagaalkii koowaad ee adduunka kadib Hitler waxa uu ku noqday Munich wuxuuna sii waday inuu u shaqeeyo militariga Jarmalka isagoo ah sarkaal sirdoon wuxuu kormeer ku sameyn jiray waxqabadka xisbiga shaqaalaha ee loo soo gaabiyo DAB Hitler waxa uu qaatay in badan oo kamid ah fikradaha jinsi nacaybka bishii September 1919 Hitler waxa uu ku biiray xisbigii DAB oo magaciisa uu bedelay NSDAP oo badanaa loo soo gaabiyo Nazi Hitler waxa uu shakhsiyan shaqadii astaantii xisbiga Nazi isagoo uu sameeyay astaan cusub inta wixii ka dambeeyay si dhaqso ah ayuu ula kulmay mucaarado uga imaanaysa siyaasiyiinta markaa dalka ku sugnaa iyo Yuhuudda kuwaas oo aad u dhibsaday khudbadii uu jeedin jiray sanadkii 1922 Hitler waxa uu bedelay oo uu noqday gudoomiyihii xisbiga Nazi waxaana korodhay khudbadii Hitler khudbadahaas oo aad u soo jeedin jiray dhageystayaasha shacabka ku nool dalka Jarmalka Beer Hall Butch November 8 1923 Hitler iyo xisbigiisu waxay xoog ku galeen shir guud oo uu qabanayay ra'iisul wasaare Gustav Kahr isagoo ku sugan magaalada Munich waxaanu Hitler shaaca ka qaaday in kacaankii qaranku uu bilaabmay waxaanu meesha ka cadeeyay sameynta dawlad cusub halkaasna waxa ka dhashay dagaal aan sababin dhimasho badan waxaana afkamiga dhexsoobay loo yaqaan Beer Hall Butch isagoo markiiba gacanta lagu soo dhigay Hitler waxaana eed looga dhigay khiyaamo qaran maxkamadda ayaana ku xukuntay 9 bilood oo xabsi ah Hitler intii uu xabsiga ku xidhnaa waxa uu ku dhex qoray buug uu kaga hadlayo qorshayaashiisa siyaasadeed kaasoo nuqulkii ugu horeeyay la daabacay sanadkii 1925 iyadoo oo qaybtii labaadna la daabacay 1927 waxaana buugaas lagu turjumay 12 luqadood halka 5 milyan oo buugna la iibiyay waxaanu buuga qaybtii koowaad kaga hadlayay dagaalka adduunka iyo aargudashada uu ugu baaqayay isagoo u jeeday in Jarmalku Faransiiska ka aarguto sidoo kale waxa uu sheegay in la joogo waqtigii lagu durki lahaa ama la qabsan lahaa dalka Ruushka halka buuga qaybta labaad uu ku daabacay ama uu ku sheegay qorsheer arrimahaas fududeyn kara run ahaantii waxa uu buugaas noqday mid ka ciid dareenka shacabka reer Jarmal Hitler waxa loo magacaabay darajada general taariikhdu markii ay ahayd 30kii Janaayo 1933 waxaana uu halkaas ka helay badanaaba awoodaha kala tirsanimo intaa wixii ka dambeeyay Hitler waxa uu gacanta ku dhigay maamulka wadanka Jarmalka intii u dhaxaysay bilowgii dagaalkii labaad ee adduunka 1939 iyo dhamaadkiisii 1945 Naasiyiinta iyo la hawlgalayaashu waxay mas'uul ka ahaayeen dhimashada ugu yaraan 12 milyan oo qof oo ay ku jiraan ku dhawaad 6 milyan oo Yuhuud ah oo metelaya 3 meelood oo 2 meelood tirada dadka Yuhuud ah ee ku nool Yurub qaabkii ayuu u dhintay Hitler isaga ayaa gacantiisa isku khaarajiyay kadib markii la jibiyay ciidamadii Jarmalka isagoo ka cabsaday in cadawgii uu la dagaalamay dhibaatada weyn oo uu geystay gacanta ku dhigaan waxaanu xabad iskaga dhuftay oo uu iska toogtay madaxa isagoo meedkiisa la geeyay meel qashin qub ah halkaas ayaanay ku gubeen ciidamadii cadawgiisa waxaanu dhintay isagoo 56 sano jir ah